kadib shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ee lagu qabtay magaalada Kismaayo ahna shirkii ugu horeeyay ee golaha wasiirada ee lagu qabto meel ka baxsan caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa shirkan fikrado kala duwan ka muujiyay dadka ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab iyadoo qaarkood ay tilmaameen in ay tahay horumar u gaaray dalka loona baahan yahay in dawladda ay la shaqeeyaan shacabka waa kuwan ayagoo la hadlayay RTN magacaygu Cabdiraxmaan Saalax Yuusuf ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab runtii aad ayaan ugu faraxsanahay dowladda federaalka Soomaaliya sida ay dhaqdhaqaaqa u wadaan iyo hawlaha ay hayaan ugu horeysay shirkii wasiirada lagu qabtay magaalada Kismaayo waxaan rajaynayaa insha Allah gobolada kalena insha Allah inay ku qaban doonaan nabad maxad baqa u diraysaa waxaan baqa u dirayaa sida hawlka iyo shaqada hadda u hayaan ay wadaan inay u sii wadaan shacabkoodana ay dadka qaxootiga joogana soo xasuustaan wasaaraha Xasan Ali Khayre waxa si zaa'idan aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha maamul goboleedka dawladda Jubbaland oo asagana dadaal dheer ku bixiyay si uu amniga iyo ilaamaha amniga u qoseeyaba ay ugu hortagi lahaayeen waxyaabo khalaas oo ka dhici lahaa shirkaasi marka aad baan u soo dhaweynayaa waxaan rajaynaynaa inay haddana gobolada kale dalka Soomaaliya lagu qabto shirar noocaas ah si ay gobolka hadda Kismaayo iyagana ay ku daysho ugu noqoto oo iyagana ay shir noocaas ay ugu qabtaan golaha wasiirada iyo golaha kale ee baarlamaanka baan dhahay iyo qaybaha kale ee dawladda marka waxaan leeyahay dalka horumar buu ku sii talaabsanayaa hal lagu dadaalo sidii dalkeeni mid horumar uu ku noqon lahaa shacabkiina isu raacaan magacaygu waa Maxamed Weyne waxaanu ka hadlaynaa shirka wasiirada golaha Kismaayo waxaanu aragnaa iskifaalo fiican hiddiile waxaan aragnaa bidhaan dawladeed inay nooga muuqanayso sidaa darteed waxaan ilaahay ka baryaynaa si aan qaxootiga uga baxno xerooyinka qaxootiga ku daalan 27 sano deganaa in dalkayna dawlad ilaahay nooga dhaliyo gobolladana federaalka hoos soo dhaadhacay waxaan ilaahay ka baryaynaa tii cagaha lagu saarato lagu najaxo lagu noolaado lagu dalka anfacda iyo diinta Allah ka dhigo saa darteed waxaan kuu sheegayaa aniga waxaanu ku daalnay qaxooti waxaanu ku daalnay cagardheer iyo xerooyinka qaxootiga Kenya saa darteed waxaan codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed oo noo curatay ilaahay inuu cagahano ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cagaha lagu saaro Cabdirasaaq Kaahi Miftaax RTN TV xeryaha qaxootiga Dadaab